karo nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwa shalay Soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla uga cararay gaal hebel diidan awgeed iyo ajnabi hebel soo diiday awgeed taladii inta dhulku u dhigay ayadoo shacbiga jilid u taagan yihiin oo ay garab taagan oo taageeradooda ay u muujeen xilka inta dhulka dhigay ka cararay maanta haddana soo qof cusub dad cusub ay soo noqdeen dadkaas dadka Soomaalida walaalayaal caatifad maaha nacayb iyo jacayl maaha taladu maalin bay kula habboon tahay aad uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas'uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysid siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khiyaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn iyo dhaqankaas dhaqan fiican ma aha maxaa yeelay madaxweynuhu waxa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ognahay waa caado xumo waxyaabaha dowladdan 16 sano la dhaqaaqi weynay waxaa ka mid ah isbeddel aan macno lahayn dowlad kastoo timaada oo aad doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa 3 ra'iisul wasaare iyo san walba in dowlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanayo marka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasaddeena ku jira wuxuu yahay quus in la quusto oo la yiraahdo meesha wax laga qaban karo xaaladdan way adag tahay shacabkan dowlad ma rabaan xaqiiqo ma aha problemku shacabka ma aha problemku golaha shacabka ma aha problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo